shaqada tababarka ciidanka badda ee Puntland halkaan aan u imid inaan soo booqdo ciidanka ogaado xaaladda ku sugan yahay bogaadiyo shaqada ay dalka u hayaan dabadeedna halkaan aan ka sii daayo war-saxaafadeed ku saabsan ciidanka iyo xaaladiisa iyo xiriirka naga dhexeeya annaga iyo dowladda Imaaraadka Carabta. waxaan rabaa marka hore inaan u mahadnaqo soo dhaweynta ciidanka halkan noogu sameeyey. waxaan rabaa kaloo ka mahadnaqayaa soo dhaweynta iyo shaqada ay dalka u hayaan ayaan intaa rabaa inaan aad uga mahadnaqo. mid labaad inaan ka hadlo xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya dowladda isu taga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliya. saa ula socotaan xiriirkaasi waxa weeye xiriir taariikhi ah muddo dheer soo jiray wanaag badan oo uu ka dhexeeyo labada dal kaasoo ah mid ganacsi iyo mid intaa kasii qoto dheer. waxaana marka hore aan ku bilaabo marka Imaaraadka Carabtu waa waddan aan la leenahay xiriir soo jireen saan sheegay. waxaa naga dhexeeya aan ku hormaraya xiriir ganacsi oo yani waxaa la yihahdaa biggest trading partner. macnaha waxa weeye waa waddanka marka la yidhaahdo ganacsiga xiriirka ugu weyn dalkaanu Soomaaliya ula leeyahay wey. waxa Soomaaliya la keenaahi waxay ku yimaadaan doonyo iyo maraakiib ka timaada Dubai iyo Abu Dhabi ka yimaada wey. waxa dalkaani runtii ganacsigiisu ku dhisan yahay. kumayaal Soomaaliya ayaa ka shaqeeya oo ka shaqaysta ganacsi ku leh deegaan ku leh. saas daraadeed xiriirkoodu waa xiriir runtii anagu qiimo gaara noogu fadhiya, qadarin gaarana naga mudan, ilaalin gaarana nagu waajibina inaanu samayno. mideeda kale dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa naga dhexeeya xiriir xagga amniga ah. amnigaas oo ka kooban markaa eegno Puntland iyo xiriirka la dhexeeya la dagaalanka xagjirnimada iyo yani terrorismka wax la yiraahdo oo ay naga saacidaan la dagaalanka shabaab Daesh. waxay kale oo xiriirkaasi uu daarayaa la dagaalanka burcadbadeeda, la dagaalanka waxaa loo yaqaano tahriibta iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaarkood lagu sameeyo kheyraadka dalkeena amase kalluumaysiga sharci darrada ah. intaasoo dhan waxaa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nimid weeye. ciidankaasi waa ciidan ku dhow 2000 waxayna ka hawlgalaan Puntland oo dhan iyo ka hawlgalaan badiya biriba. waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Ceelaayay joogaan. waxay joogaan Garacad, waxay joogaan Eyl, waxay joogaan Isku Shuban, waxay joogaan Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daesh iyo wixii la xiriira. waxay joogaan Boosaaso, waxay joogaan Ceelaayo iyo ilaa Laasqoray ay ka hawlgalaan. ciidankaasi marka waxay kaloo ciidankaasi ka hawlgalaan biriga oo ay ka dagaalamayaan kulana dagaalamayaan shabaab buuraha Galgala iyo Calmadow oo yihiin ciidanka ugu xoog badan ciidamada ugu xoog badan meeshaas ka hawlgala iyagoo meelo kala duwan hadda aan carribaynin ay ka joogaan kulana dagaalamaan xagjirnimada iyo sharwadayaasha Soomaaliya kusoo duulay. ciidankaasi waa ciidan tababaran aan oran karo ciidanka Soomaaliya u tababar fiican weeye. waa ciidan discipliin leh, akhlaaq leh oo dhowrsan. waa ciidan qalab ku filan oo Soomaaliya cid haysataa ay yartahay ku shaqeeyo weeye. marka ciidankaasi hawsha ay hayaani waa hawl ay Puntland u hayaan, waana hawl ay Soomaaliya u hayaan. macnaha hadday Puntland ka shaqeynayaan ma aha inay Soomaaliya aysan ka tirsaneyn, Soomaaliya u shaqeynayaan. Puntland aad u ogtihiin meesha ay kaga taalla Soomaaliya
waxaanu joognaa difaaca u horeeyay ee Soomaaliya waa Puntland meesha laga soo galayo shidadu ka imaanayso baddaas furan oo dheer ama badda Cas iyo Indian Ocean kaba dib kastoo ka imaanaysa cidda wajahaysa oo ka hor imaanaysa waa Puntland weeye marka haddii Puntland difaacaana Soomaaliya ay difaacu yihiin weeye micnaheedu waxaan rabaa marka inaan idiin sheego inaan ka codsanayo dowladda Imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan ay joogaan waana ciidankuna waa jirayaa tababarayaasha dowladda Imaaraadkuna waa ay joogayaan hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii laban oo sii laba jibaaraan si ay u awoodda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaas oo aan sheegnay ha noqdaan shabaab ha noqdaan daacish ha noqdo la dagaalanka burcadbadeeda iyo jariifka iyo la dagaalanka tahriibtaba si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonadana ay uga sii shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba waxaan idiin sheegayaa marka sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabtu waxay Puntland ka waday maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha Puntland $100 milyan oo dollarna ay ku maalgelinayaan ay ugu horeyso ballaarinta dekedda Boosaasood iyo mashaariic kale oo soo socota aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yiraahdo free zoneska ay ka mid tahay waxa la yiraahdo warshadaynta industrial parkska iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto la hadalkooda aan kala hadlayno dowladda isu taga Imaaraadka Carabta marka way muuqataa in ama ha noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan Puntland iyo Soomaaliya ama ha noqoto taariikhda soo jireenka iyo xiriirka ganacsi naga dhaxeeya ha noqoto maalgelinta ay u sameynayaan Soomaaliya ha noqoto intaasuba waxay noo cadeynaysaa noo sheegaysaa hadda marka cid annaga noola siman ama noo bedeli kartaa inaysan jirin dowladda isu taga Imaaraadka Carabta nacadima khaladaha waxoo naga dhacana waxaan rabaa inaan ka cudur daaro una apologize garay ayaga in aanu mararka qaarkood safgarwada imaan kara dhib yar baa dhici kara dhanka Soomaalida ka imaan kara marka inaan taa laftigeeda aanu ka cudur daaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecelahay lana shaqaynayno wanaagoodana aan runtii aad u qiimeynayno wey marka iftiin badan baa ii muuqda Soomaaliya baa ii muuqda Soomaaliya isbedel weyn baa ka socda Soomaaliya waxaan rajaynayaa codsanaynaana in dowladda ismaadka Imaaraadka Carabta iyo saaxiibadayada kale ee caalamkuba ay qeyb mug leh ay ka qaataan isbedelka socda ee Soomaaliya ay dowladnimadeedii qarannimadeedii karaamadeedii sharafteedii ay dib ula soo laabanayso meel fiican baan joognaa inaan hore u soconaa waxaan u sheegaynaa in aysan la-aantood aanan guushaas noo muuqata aanan gaari karin waxaan rabaa marka sidoo kale inaan wax yar ka iraahdo arrimahaas maalmo dhaweyd social media gaar ahaan ka socotay social media runtii wuxuu noqday dabcan waa fiican tahay mediahu inuu waa laga maarmaan muhiimad gaar u leeyahay laakiin mararka qaarkood waxaan moodaa social media inay noqdeen meesha Soomaaliya laga duminayaba laga wada propagandada waxaan jira la sheegayo ciidamada baxayay diyaarada laga hor istaagay waxaas oo dhan oo been ah iyo khuraafaad ah oo bariyaha laga waday media sax maaha marka waxaa wanaagsan media inuu ahaado mid mas'uuliyad wata responsible media loo baahan yahay waxa been in la sheego ma kaliya ma aha social media caadiga ah oo aan aqoon jirnay ayaa u jeeda mararka qaarkood warar been oo khalad inay sheegayaan salaala hada saxaabada Voice of America iyo ninka la yiraahdo ninka wariyaha Harun Macruuf waxa uu qorayay oo beenta oo uu ka dhigay inay news tahay sax ah source fiican uu ka helay wax jira ma waxaasi marka waxaan rabnaa in aan laga shaqeyn xumaan Soomaaliyeed wanaag Soomaaliyeed inaad yani aad ka shaqeysaan oo waxaa la rabaa aad waxa sax ah sheegtaan wixii official ah dowladaha cidda saxda ah oo ka wareysanaysa inaad taqaaniin baa la rabaa marka
waa idin sheegaya inaysan arrintaasi sax ahayn waanan ku dhiirigelinayna ku yani tatarsiinaya in aad warka kiisa saxda runta in aad tabisaan. Soomaaliya waxay maraysaa xaalad aad u wanaagsan, dhanka kalena xaalad kala guur ah, crossroads baanu joognaa. Marka meesha aan ka aadnaahi, waddada aan qaadnaahi, haddaan mid khaldan qaadnana meel khalad ay ku dhammaanaysa, haddaan mid saxa qaadnana meel sax ay ku dhammaanaysaa. Waxaan rajaynayaa inaanu qaadayno midda saxda ah. Waxaan rajaynayaa in Soomaaliya ay guulaysan doonto, horuna mari doonto, annaga iyo saaxiibadayada oo wada soconaana aan la gaari doono goolka aan leenahay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin, khayr baan idin rajaynayaa. waxaan rabaa marka inaan laba kelmadood ku idhaahdo luqad gaaleedka miyaa la oran jira afso caan waxaa la yidhahdaa luqada ajnabiga luqad qalad meele. okay way Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for coming here. It's a great pleasure to be here at the BMBF base in Bosaso, Puntland. I came here to oversee the activities of the BMBF forces in Bosaso and in Puntland, and to see the situation of the base here, and also to have the dialogue and discussion with the trainers and also with the commanders of the BMBF forces here in Bosaso. I would also like to make a statement regarding the long-standing relationship and the long-term relationship and the historical relationship between UAE and Somalia, and particularly their activities here in Puntland. UAE has a historical, as I said, relationship between historical relationship with Somalia, and particularly Puntland, and is the biggest trading partner of Somalia. It is the dhows and the ships from UAE that are the backbone and the lifeline of Somalis, all over Somalia, and particularly Puntland. Thousands of Somalis reside and have a gainful employment in UAE, unlike any other country in the region. We cherish and value their relationship. UAE is a strategic partner in the fight against terrorism, against piracy, against illegal fishing, and against illegal human trafficking in Somalia, and particularly in Puntland. The UAE have trained and equipped more than 2,000 forces, BMBF forces, in Puntland, and they were here since 2010. These forces are based in all over Puntland, from Gara'ad to Bosaso to Alayo. They are in Gara'ad, they are in Eil, they are in Skushuban, they are in Hafun, they are in Bargal, and they are in Gandala fighting ISIS. They are in Bosaso and more other places. They are also fighting Al-Shabaab in Galgala Mountains. They are the finest, the most disciplined, and the best trained force in Somalia. If UAE, we expect that the UAE will continue its support of these forces, and without them there will be a security challenge in Puntland, and this will only help our enemy, particularly Al-Shabaab and ISIS. We ask our UAE friends not only to stay, but to redouble its efforts in helping Somalia stand on its feet, and to help Somalia in its fight against terrorism, so that Somalia can protect its sovereignty and territory. I would also like to state that UAE is investing heavily in Puntland and in Somalia. As we all know, UAE is investing hundreds of millions of dollars in expanding the Bosaso port. This will be the biggest investment ever in Puntland. We are also expecting more investment from UAE, including infrastructure development, roads, free zones, and industrial parks. Therefore, UAE is an indispensable ally of Somalia. No other country can replace for them in their support to Puntland.
We apologize for any inconvenience that may have inadvertently faced Somalia. Lastly, I would like to say a few words about the sometimes irresponsible social media. Social media became a venue for spreading lies in the windows and sometimes causing irreparable damage to the name of Somalia. I ask them to refrain from such behavior. They were lately spreading rumors that UAE is leaving Puntland, that the airplanes denied departure from Bosaso. These are unadulterated nonsense. UAE is here to stay, and they will not abandon Somalia in their hour of need. Somalia is going through a difficult, critical period, and we are at the proverbial crossroads. We need the support of our international partners, particularly UAE. I see the light at the end of the tunnel, at the end of the dark tunnel.